ومركلة iyo arrimaheeni doorashada Soomaaliya sida loo maleynayo ma ahan xaalad Soomaaliya aad bay u adag tahay because Soomaalida laguma yaqaano inay wax ku heshiyaan waa dad mar walba ka xigo dagaal inay kumanaan kun oo qof dhimato kadib ajnabi u soo dhaxgalo saas lagu heshiisiyo madaxweyne walba oo Soomaaliya maado uu jecel yahay inuu awood haysto sababtoo ah فيري إثيوبيا دقس نجرتو ودولة عرقتي دورشة كم دعوة أريتريا هالشيء محاولة بيس يوغندا أو عيدمية ودن كيني جوغان تنزاني دورشة دولة شبطي مركا إست أفريقيا دن كينيا أورون أو الليبرال ديمقراطية وحلاك ديمقراطية أنبوحين صو مدحوينا الصومالي حسابتك كما خلدانو إنو كشبتو ربا لكن قاب كي باكاها الليسان أو سيتويشن كي حالة دا أسهلين الصومالي أوكي حدرتان حسن الشيخ وطبعا كتاي إنه كشبت غربة دورشة لكن قابكو وشبانيا بنتلان مقارو جبلان مقارو مانت عيدم كفلان أو أرماس أسهلي كرمهستو ماشا الصومالي دي اي كير نولان جرتي أو laga pressure green jiray oo xaaladan oo kale lagu dajin jiray waxaad Mareykanka wuxuu dhihi jiray no waxa waqti badan nooga baxay am sumta mishar badan ku bixinaa Soomaaliya kala jooga dagaal haduu dhacane annaga bay faraan la soo galaysaa wuxuu ku sii faafisa Kenya Ethiopia dan dagaalku uu sii baahaya wax Soomaali loo dareemay meehan wax oo Mareykanka dantiisu ku watay laakiin hadda waxa iska hashadani sheegaya Xasan Sheekh waxa iska hashaday asagi oo dictatorship tendency waxa la dhaho like qaab dictator amalna u dhaqmo rabo iyo Mareykankii oo leh we don't care waxa ma neegil safaaradda hatta Mareykanka had safiir ma qabto Turkiyada marka oo lagu yaqaan ayagana dimuqraadiyadooda inay ahayn 100% baaxad shaqad Turkiyada marka waa qaabka ay wadamada weyn u shaqeeyaan ama wadamada galgalka wadamada kale ku yeelanayaan Turkiyada u shaqeynayaan Turkiyada waxa waaye okay do it am isku day hadday ku shaqeyso waan kula jirnaa hadday ku shaqeyn weysane annaga hana eedin marka Xasan Sheekh Turkiyada waxay leeyihiin hadday ku shaqeyso waan kula shaqeysanayna hadii ku shaqeyn weysana madaxweynaha kale la shaqeynayna laakiin midda laga baqay waxa waaye Soomaalida xabad iyo hub aad u badan wadanka yaalo waa aragtay wadanka qayb badan oo kamid dawladda ma haysato waa inay Soomaalida aqligooda iyo maskaxdooda isticmaalaan sida hadda la sheegayo aan warbixino ku helayo Mareykanka listiga uu soo saaray ama warbixinta uu soo saaray oo dagaalka argagixisada wuxuu ku yiri Soomaaliya waxna ay quseeyay male argagixisadeedana waa arrimo qabiil iyo dad xurguf isku haysto waxna ay quseeyay malahan Kenya Ethiopia taa way ku jabeen oo lacag badan ay ku heli jireen markuu Mareykanka dhaw argagixisada Soomaaliya ka jirto waa qatar lacag badan ay ku heli jireen Trump wuxuu taagan yahay war waxna ay quseeyay male Soomaaliya iyo argagixisadeeda ma garanaysa arrimaheena kale aan ku daalno okay Xasan Sheekh markuu wax fursad siinayo Mareykanka markii loo sheegay oo wasaaradda arrimaha dibadda Bureau of African Affairs lagu dhahay wadno Soomaalida way isleen rabaan Soomaalida xabadda isku jirto maxaad Mareykan oo leedahay Trump sida la sheegay wuxuu yiri war anaga wax ay quseeyay mala Soomaaliya ee danihiina qabsada ku dhahay dadka madaxda waxa hadii ka soo hari weysan wuxuu yiri African Bureau of Affairs ka qaybta Afrika ee Mareykanka wasaaradda arrimaha dibadda ha xalliso kadib ma garanaysa ayagan xorriyadii inay xaliyaan waxay taa ku sheegaysaa Soomaaliya priority ma aha okay meesha xaaladda ay ka adagta marka Israa'iil oo Somaliland aqoonsatay waxay wadaa barnaamij la isku soo dhaweynayo Puntland iyo Somaliland si